maanta madaxweyne xasan sheekh iyo ajandihiisa wax ka beddelka dastuurka uma ahayn mid wanaagsan umana dhowlo qoslin si la mid ah ayaamihii baraarada ee gudbay mucaaradku waxay qabsadeen halka laga hago howlaha baarlamaanka aadan madoobena waa ku guuldaraystay inuu si dhammaystiran maanta u eriyo ama uu xoojiyo mashruuca qabyatirka dastuurka ee aan heshiiska siyaasiga ah iyo midka bulshada aan haysan kaasi oo ay si xooggan u xoojinayeen si meel mar looga dhigo muddooyinkii lasoo dhaafay weedhii ansax weeyana maanta hoolka waxba kama tarin guddoonka oo caraysan ayaa kuraasta sare ka huleelay in xildhibaanada mucaaradka gaar ahaan xubnaha saamaynta leh ay hortagaan golaha oo ay diidaan ajandaha dastuurka wakhtigan la furo waxaa la aaminsan yahay inaysan wax wanaagsan u ahayn damaca madaxweyne xasan ee daaran inuu helo aag dhexe oo nolol siyaasi ah xukunkiisa uga helo una golo tago kowda bishan wakhtiga mucaaradkiisa ishor fariisanayaan in keliya fadhiga maanta guul laga keeni waayo waxaa sii wehelisaa in lagu guuldaraystay mudanayaasha baarlamaanka ka sokow guddoonka golaha lagu mideeyo ajandaha ay keenayaan guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayaana fadhiyadii ugu dambeeyey ee wadajirka golaha imaanin weli aamin lagama aha inkastoo ay sheegayso villa soomaaliya inay ku guulaysatay in aqalka sare u xirmin haddana wax kasta isbedelle xowli ku socda ayaa dhexda u taagan madaxweyne xasan sheekh cid difaacda waa waayey keliya madaxweynaha maanta inuu waayey doonistiisa in golaha laga socodsiiyo keliya uma ahayn waxa u raacday in mudanayaashii ugu badnaa ee difaaca ugu jiray badankooda ay ka siibteen oo ay diideen inay laabta u dhigtaan mucaaradkii qaar kaleetana fadhiga wayba ka maqnaayeen taasi oo muujinaysa wadajirka iyo ayaamihii baraarada dhammaadkiisa in la gaaray oo dhabta aad loogu sii dhowaanayo fiidnimadii xalay madaxweynaha ayay ku qarxeen dekanooyin siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale oo kala dhexeeyey xubnihii ay horey uga wada soo shaqeeyeen wax ka beddeladii hore iyo ballamo siyaasadeed oo meelmar noqon waayey in ka badan 30 mudane baarlamaan oo madaxweynaha kooxdiisa u badan tahay oo xalay la hadlay waa lagu guuldaraystay in la helo oo ay fadhiga ka qayb galaan sidoo kale qaar ka mid a kooxaha loo yaqaano ayaa warbaahinta si cad u mariyey mowqifyadooda ilaa doorashada taasi oo xanuun badan ku abuurtay dhanka madaxweynaha 48 saac lasoo dhaafay madaxweynuhu inkastoo uu juhdi geliyey in wax ka beddelka la qaybiyo 5 maalinna lagu kala baxo taasi waa shaqayn weyday oo dekanooyin siyaasadeedkii hore u dhacayaa galaaftay mucaaradku waxay sameeyeen bandhig siyaasi ah 36 bilood ee lasoo dhaafay golaha ayaa ahaa masraxiyad ay mucaaradka ugu yeereen aad loogu jilay rabitaanka madaxtooyada oo damaceeda oo keliya looga shaqeeyo guddoonkuna ay noqdeen xubno aad ugu dhow warka madaxweynaha oo lagu lamaaniyey fariimo kale ilaa iyo mucaaradka qaarkiisa ay gaarsiiyeen in xasan sheekh maxamuud uu isku noqday xil kasta oo dalka yaalay tallaabaqaadka mucaaradka ee ay maanta ku hor istaageen in la qaybiyo wax ka beddelka dastuurka waxay ka dhigan tahay in marxaladdu hadda ay ka soo gudubtay in indhaqarsigii iyo danakalahaanshihii dhanka madaxweynaha uu dhammaaday taasoo ifafaalaheeda saaka golaha uu ka dhex muuqday buuq sawaaxan iyo gacanka hadal iyo tallaabooyin ay dad badan ku sifeeyeen kuwa xildhibaanada qudhooda isku muujinayeen ayaa fadhiga maanta hariyey codka ugu dheerna ma ahayn saaxiibada madaxweynaha oo maanta keliya laga helay wasiirka amniga gudaha fartaag oo ay isku gacan qaadeen saaxiibkiisa ay dhufayska ku wada jireen amintan 2021kii xildhibaan firimbi taasi oo muujinaysa in doonida laga sharaacday sancadii saaka fadhiyada waa ka shaqayn weyday 4 ka mid a kooxaha madaxweynaha u qaabilsan arrimaha sancaynta ama duulaalnimada siyaasiga ah ayaa ilaa xalay dadaalkooda ugu badan ku bixinayay sidii ay u kala furfuri lahayeen xubnaha mucaaradka waxay isku dayeen in ugu yaraan la helo jid loo mari karo in dhaqaalo ballanqaadadiisa la sameeyo laakiin sancadu saaka kuma sancaneyn fadhigan guulna lagama gaarin oo isku day xildhibaanada laga doortay hirshabelle iyo galmudug qaarkood ay isugu dayeen in aadan madoobe ku qanciyaan fadhigan markii laga awood batay ayaa shaqayn weyday oo golaha waa la furay lamase gaarin ajandihii laga lahaa tallaabaqaadka aadan madoobe in fadhiyada uu ka mamnuuco mudanayaasha ugu badnaa ayaa hadda guddoomiyuhu uu qorsheynayaa taasoo noqonaysa in xubnaha hagayay gebi ahaanba fadhiyada laga diido laakiin siday dhaqangal ku noqonaysa oo lagu kabay muddaxileedku inuu dhammaad yahay iyo habdhaqameedyadii hore loo arkay ayaa dilaya dood kasta oo guddoonka golahu ay xilligan keenaan sida ay qabaan dad badan oo arrimahan darsaya fariinta shirka Febraayo in golo midaysan maanta laga diiday qaybinta wax ka beddelka 5 cutub oo ka mid ah qodobada hortebinta leh ee dastuurka qabyada ee Soomaaliya waxa la aaminsan yahay inay fariin u tahay in mucaaradku ay soo dhiiranayaan haddana ay gaartay amintii dib loo wajihi lahaa xaqiiqada doorashada taasoo madaxtooyada xumadeeda jeclayn
hal qodob oo madaxweynuhu ka lahaa saaka oo ah inuu istusiyo ama isku tusiyo mucaaradku inuu weli awood ku haysto dhanka baarlamaanka ayaa soo idlaatay, taasoo golaha mustaqbalka u ah aag ay ku dhiiran karaan hadda in dhabta la aaday iyo in runta dhinacyadu ay isku arkaan.